madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dib ugu soo guryo noqday caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa kadib socdaal qaatay 2 maalmood oo uu madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayay ku tageen jamhuuriyadda Djibouti. safarkaasi oo ahaa safarkii ugu horeeyay ee uu madaxweynuhu ku kicitimo wadamada dalka dibadiisa tan iyo markii loo dhaariyay xilka madaxnimo. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Ali Shire oo kamid ahaa wafdigii uu hogaaminayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa warbaahinta u iftiimiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen labada madaxweyne. waxaan ka soo laabanay dalka Djibouti annagoo ah wafdi uu hogaaminayay madaxweynuhu oo ka kooban wasiiro iyo taliyayaasha ciidamada. intii aanu joognay Djibouti si wanaagsan oo milgale oo qurux iyo xaraga leh ayaa naloo soo dhaweeyay. waxaanu saragnay madaxweynaha, waxaanu la kulanay wasiirada dhigayaga, waxaanu soo marray kormeer ku soo marray mashaariic xarumada oo aad iyo aad u badan oo qiimo badan oo ku dayasho mudan. xalayna waxaanu la kulanay jaaliyadda. si wanaagsan ayuu safarkaas noogu dhacay, mid saaxiibtinimo mid shaqaab uu ahaa, mid inaga dhaxeeyay ninka iyo Djibouti weeye. sida caadi ahaan jirtay hadii jarmalka madaxweynaha la doorto wadanka ugu horeeya uu tagaa waxay ahaan jirtay Djibouti, taasoo ka turjumaysa yani ehelnimada iyo maxay raadayay cilaaqaadka wanaagsan ee naga dhaxeeya dhinac walba. Mubaarak Fuad Dhagacade, TV-ga Saab, Hargeysa.